أفر مرحلة عشينا وصامري والسومالي لأنها يصامرتي مركز السومالي لأنه مثلا عشان قالوا يسكسكتين أو صعب حرية الكفر يهلك في اللي بتشري وحكم إذا هجاميات في السومالي هجامي وهجامي في أغلبيته مركية إنه 1960 ما في حرية الإنجليز كهلا من ماذا قاعدة يقول كهجامي واجا إنها دولة ومرحلة إنه كتير بهاد مرحلة اللي بعد دولة رئيس كهاي الديمقراطية كهينا هجامية كم إذا هجامي دولة إنه كم يتهايم بوها أول دورتي أو سفليان أو الديمقراطية الله دورتي بوها تاسينا مرحلة وصامري وأنا أكيد يحمي هيدا وهي تصدحنا وحوي ميليتري ريجيم كي سياد بلاد هيسي ولا سو شقي وحيابها لغو استعمله لي هي قف براغماتيك انه ها اي موجينيسا كل هيغنا ولا سو شقي مرحله سو مري وناغيدي wax ma heedayana leh marxalada u dambeysay inagu aad u naqaanaana waa sidii 1993 ilaa 2001 markuu dhintay oo iyaduna dibteedana lahayd sababtoo dagaal sokeeyay ayuu ku soo beegmay oo qayb ka ahaa haddana geedi socodkii daldiska ayuu dhexaad u ahay maanta waxyaabaha inuu haynaa waa waxyaabii maxamed xaaji raaciga ka tagay marka xujay ku tahay dadka hadda jooga Soomaaliland maxamed raaciga way dhismaha dastuurka uu sameeyay institutions ka tagay inta in la eegay ku koron maxaa laga baran karaa anu saddex kaliya ku soo koobi lahaa marka koowaad wuxuu hogaamiye pragmatiga waaqiiciya maxaa shaqayn kara ayuu ka fikiri jiray hab nololeedkiisu dhan hadda soo eegna taasay ku salaysnayd waxa la yaabaa ciiday cadow la saaxiibo raaco oo kii la socday la yaabo dabeedna isagu cadow u noqdo because wuxuu ka shaqaysiinayay noloshiisa siyaasiga ah talabaad muu ahay nin siyaasadda ugu jira inuu jeedo kala gaadho hada shaaciga intuu siyaasadda ku jiro dhan wuxuu powerka ugu jiray for the sake of the power inuu awoodda joogo ugu jiray marka hada shaaciga markuu wuxuu ka dhashay qoys hoodana buu ka dhashay abi taajir buu ahaa nin lacag badan haysta buu ahaa laakiin se wuxuu ka dhintay isagu lacag haysan buu ayuu dhintay hada shaaciga Soomaaliland uu maamul intaas oo sano wuxuu soo ahaa nin politician abu soo ahaa waxa muu xadin naftiisa wax muu xadin musuqmaasuq qayb uu ka ahaa taas waa lagu yaqiinay dadka aad u xusin jiray waa corruption wax sahlan maaha laakiin isagu wax muu dhisan jirin caruurtiisa wax muu siin jirin qoyskiisa wax muu siin jirin yaa powerku ku ilaashan jiray marka taas dhinacna waa ka negative dhinacna waa ka positive dhinac waa ka negative because nidaamka maaliyadda saxda muu raaci jirin gurigiisa lacagtiisa ka tilay baa lagu oranaya qofka uu siin jiray waa xumay dhinacna positive ka haydo maxay ka xigal baa qaatay ama dhul qaatay ama hanti qaatay ama qof lacag isku haystaan ma dhici karto caruurtiisa waxba uga muuteen cidna isma hayaan magaalada waxay ku maraan bilaa bodyguard cid waliba miiska uga kacdaa because wixii ugu wanaagsan qof binaadana looga tagi karaa uu la tagay waxa maxay sharaf iyo karaamo iyo jacayl maxaa raacigaal xitaa kuwii mucaaradka ku ahaa ka soo horjeeday qoyskiisa maanta way jeceliin taasina waa mid ay siyaasiyiintu ka baran karaan xilliga jooga ta u dambaysa waa state building weey maxaa raacigaal wuxuu awood saaray inuu dawladnimada dhiso wuxuuna aaminsanaa institutionska dawliga baa aaminsanaa iyadoo impeachment la saaray oo baarlamaanku maamuska xayuubin ku sameeyo ayuu ololihiisa ku jiray baarlamaankii muu xidhin askar hawmuu dirin dibna muu geysan wuxuu diyaar u ahaa inay kursiga ka qaadaan oo iska tago cod iyo labuuna ku badbaaday institutional belief una sahlan maaha Soomaaliland mid u baahantay saddexdaa shay baa cigaal xagga positive waa laga faa'iiday karaa aad iyo aad u mahadsan yahay Garyaan Guuleed soo koobid fiican buu sameeyay oo afar qodob oo muhiim ah runtii oo iyaga laftooda haddii caawa dhan laga hadlayo aan la dhamayn karin buu ka hadlay aan ku xigsiiyo farxad oo iga xiga dhankan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما تنتنا إلى هذا وأنت وقتك صهرتي وقت ميد أنت سيدا وعنق من قابسي هي مرتشرفتك لي مسؤولين تدمانتون لقال لي بحوانا لو ديبي لقال لي بحنا لو ديبي وحنا ليدي واحد كورنتان هجامية متكاينة أنا سو قاعدين دادا تنسكير حوال كيدو أحمد كيسان نقوله أي شيء أقونت وحين فريسا إن النقرات أو النقرنا إن تيران دنا وقع أقوم بدنا ورفديا تيران دد لسه شقيي أو وحنا كلنا هاي وحكة بدنا كورا كريا لكن وحنا كلنا وحنا الله حشون ملها إن أنا هو تصالينه أنت وين ما هي أنت يري ما هي كبران كرتا وأنقل كان أنو كتاجنا دنيارتو ما هي كبران كرتا وقامتي فلسفة دي محمد حاج إبراهيم قال الله ونحرسته سي وكان نصيب بدنا هجامياش Somaliland محمد حاج إبراهيم قال أو سومو قارين ما أنت فيسبوك يلا ما نسيسو قارينو يكويو يوتما يا فيسبوك حفينا يا محمد حاج إبراهيم قال كانوا عاو كان لينا كمان هذا اللي هدو سو قاري لها دين عاو كان نصيب بديه هجامياش ما أنت تشوجا دين عكس طبعا نقطة
dhinac kalena uu ka nasiib badnaayo wuxuu uga nasiib badnaa bulshadu waqtigaa doonayay inuu hogaamiyo amaba uu hogaamiyey waxay ahaayeen kuwa u heelan waxa la doonayay yoolka rabay in la gaadho in la isugu tago Axmed Kiisa